waddankeenu saddex ilood oo dhaqaalo waaweyn buu leeyahay ilaa mahadii afka ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa productive sectors ama wax soo saarka oo runtii wixii shaqo u abuuri lahaa dad badanna runtii dawladuna cashuur badan ka soo gali lahayd mid waxa weeyaan waad ka warqabtaan oo waa kalluumaysiga anigii ahaa wasiirkii kalluumaysiga ilaahay wuxuu inay siiyay badda ugu weyn Afrika oo dhan ugu dheer baan haysanaa waa 3300 kilomitir marka kaloo la eegana waxa la yiraahdo aaga dhaqaalaha ama special economic zone waa 1,200,000 oo isku wareeg oo kilomitir weeyaan waa aaga dhaqaalaha dawladda federaalku mas'uul ka tahay in maaragtay runtii ay ummadda Soomaaliyeed khayraadka wax ugu qabato dhibaatada waddanka ka jira marka haddaad eegtid boqolkiiba hadday ugu badato 3% ama 4% weeyaan waxay naga soo gala dakhliga badda qaniga oo inta leegad aragtaan inta soo qoray naga soo gasha 96 iyo wax ka badanna waa baddaasi waa dihintahay waayo waxay u baahan tahay maalgashi in la geliyo waxay u baahan tahay xeebaha in laga sameeyo qaboojiyaal waxay u baahan tahay dadka in la siiyo dooniya casriya waxay u baahan tahay dadka in la siiyo qalabkii lagu kalluumaysan jiray in la tababaro sida kalluunka loo qabto sida loo diyaariyo waxay u baahan yihiin meelo badan oo ku yaala degmooyinka ama magaalooyinka oo kalluumaysatada ku yaalaan meelo waxa jira kalluunka lagu diyaariyo oo inta madaxa laga gooyo oo sidii assembly line oo kala marka hadda waddankeenu waxa kaliya uu sameeyaa waxa weeyaan shati buu bixiyaa waad maqashay maanu maleynaya hadda ilaa shalay warar badan oo ku saabsan musuqa hadda badda ka jira Soomaaliya ba maaragtay warkeedu aad u soo baxay shatigan la bixiyo waa waxa ugu liito wadan sameyn karo waayo marka baa intuu yimaado ba wuxuu qaadanayaa marka inta soo metric tan oo $130,000 bayna siinayaan kalluunkay naga qaateen oo shatiga lagu siiyay wadamadoodii markii la tagaan oo warshado galiyaan $15 milyan bay u noqonaysaa waxaan inaku $130,000 in lagu siiyay waayo ma leeyin qalabkii iyo wixii loo baahnaayo dhan ay sheegayay anigu intaana dawladda ka tagin qorshe baxan keenay aan u soo dejinay runtii dawladda u keenay oo ilaa 4 sanadood 5 sanadood hadii qorshaha la maalgelin lahaa ilaa $2 milyan maaha $2 bilyan baa sanadkii ka soo gali lahaa waddankeena qorshahaasina wuxuu u baahnaa maalgashi buu u baahnaa waxa kale oo iyaduna muhiima ilaha kale oo dhaqaalaha oo waddanka shaqo abuur badan u sameyn kara dadka waxaad ogtihiin oo xoolo dhaqataan ahay inaku meesha kaliya oo dhaqaaleenu hadda xoogaa runtii wax ka soo galo waa xoolaha aan u dhoofino Sacuudiga iyo waddanka la yiraahdo Imaaraadka waxa lagu qiyaasaa ilaa $600 milyan sanadkiina aan ka helno laakiin waxaan dhoofinaa neefko sidiisii oo dhan baan dhoofinaa oo wadamada u dirnaa markaana iyagu markay qalaan ama waxa jira runtii manaafacaadkiisii oo dhan iyaga qaata qorshahan annagu soo jeedinayna waxa weeyaan runtii barnaamijkayga oo tafaqtirana wuxuu ku jira website-kayga badbaado.qaran.org qorshahan soo jeedinayna waxa weeyaan waddanka waxaan ka rabnaa gobol kasta xoolo dhaqato badan buu leeyahay waxaan rabnaa warshado casriya oo lagu qalo xoolaha oo markaana hilibkii inta la googooyo sida supermarkets ko kale inta loo diyaariyo marka meeshii aan 600 neefafko sidoodii dhoofin lahayn warshadahaas ama kawaanada lagu qalay oo casriga waxa ay loo dirayaa wadamo ciida ka badan oo ka mid yihiin wadamada Central Asia iyo bariga dhexe waa cuntada dadkoo dhan ugu jeclayna wax la organic food weeyaan dhir wanaagsan oo runtii oo kala duwan bay daaqaan marka premium ama lacag ciida ka badan baa raba inay wadamadaas bixiyaan taa lafteeduna $3 bilyan bay keenaysaa waxa lagu qaadiyaa diyaaradahan la yiraahdo cargo planes oo dunida dhan geen kara oo maartay geen kara soo taasina waa wax weyn oo ka qaban kara runtii wixii wax loogu qaban lahaa garsoorkii ciidamada lagu dhisi lahaa kaabayaasha dhaqaalaha lagu dhisi lahaa qaybta ugu dambayso wax soo saar oo waddanka leeyahay waa beeraha waad ka warqabtaan ilaahay waddankan wuxuu ku banaystay labada wabi aan leenahay oo ah Jubba iyo Shabeelle sidaas la eg boqolkiiba 6 wax u dhigmo baa laga soo saaraa beeraheena 94 waa wax aan runtii waa dhul iska dihin aan la wali la beerin weeyaan Afrika oo dhan buu cuntada oo dhan ka iibin karaa waddankeena saad ka warqabtaan
cuntada laga cuno dhan boqolkiiba 98 banaanka laga keenaa oo waa import weeyaan marka lacagta adaga aan leenahay oo dhan taasay ku baxdaa arrimaha waxay ku baxdaa cuntada aan soo iibinano haddii warshadihii sameyn jira oo beeraha oo dhan laga sameeyo wadanka oo keenaya saliid maxaan ku dhahaa sonkor daqiiq wax kasta marka iska daa lacag inaga baxdo oo banaanka aado innakaaba ka gadana dad badan oo dakhli badan baa inaga soo galaya marka kuwaas oo dhan waa arrimahan doonayno inaan wax kaga qabano waxa kale oo muhiim ah si dhaqaalaha wadanka loo dhiso dunida oo dhan waxa weeyaan wadan wuxuu leeyahay waa dadka uu leeyahay ama maskaxda dadka aad leedahay weeyaan runtii waxa dunida isku dhaafeen wadankan aan joogno wadankan Mareykanka wuxuu leeyahay meelaha wax soo saarka weyn loo wadanka leeyahay Silicon Valley oo meeshan Google iyo Apple iyo Facebook iyo maxaan ku dhahaa Amazon maaragtay kuwaasoo dhan waxay ka yimaadaan waa maskax weeyaan waxa weeyaan billions iyo trillions baa wadankan soo gala waayo waa maskaxdooda maalaan marka waa inaad dadkaaga wax barta oo tacliintu waa muhiim weeyaan wadamo badan oo dunida waxaa jiraan khayraad lahayn oo ay ka mid yihiin Asia da bari ama East Asia oo ay ka mid tahay Malaysia waxaan u jeedaa Singapore South Korea Japan dhulkaasoo dhan waxa ay isticmaalaan khayraad male laakiin waa cilmiga maskaxda isticmaalaan innaka wadankeena waxa weeyaan runtii haddaan laba number iniga sheego laga yaabo inay sawir inaga tusto World Bank maalina wad report buu soo saaray oo ku saabsan arrimaha waxbarashada Soomaaliya waxa ay yiraahdeen 4 milyan oo caruur oo dhalinyaro ah ba diyaar u ah inay dugsiga hoose ama primary school ka dhigtaan Soomaaliya oo inay maaragtay hadda diyaar u ah in wax la baro imisaad u maleynaysan inta school dhigata 4 milyan oo caruurtaas oo kala hadda Soomaaliya baad u maleynaysan inay tahay 1 milyan oo kaliya ba school dhigta 3 milyan oo maskaxdii dunida oo dhan bedeli lahayd maskaxdoodu waxay ku qaayistaa cid lacagna ma haystaan iskuulada Soomaaliya oo dhan private bay u badan yihiin hadda marka waxa weeyaan waa waxay naga lumaya waa dadkii wadankan iyo cilmiga science iyo technology-ga iyo waxaas oo dhan soo saari lahaa dadkaas oo dhan waa dad u baahan wadankani in uu dhaqaale galiyo maalgashi galiyo si dadka wax loo bari lahaa taasina waa arrin kale oo khayraadkii saddexdii waaweynaa beerihii xoolihii kalluumaysigii waxa kale aan leenahay oo Ilaahayna siiyay oo aad ka warqabtaan macdan baan leenahay iyo petrol baan leenahay dhawaan waad ka warqabtaan in laga helay xeebteenan laga bilaabo Raaskambooni ilaa meesha la yiraahdo Hobyo 206 block oo petrol laga helay petrolka la qiyaasay wax la yiraahdo trillions waa 1 bilyan oo kala dhaqaale ah ku jira anagu waxaan aaminsanahay xukuumadda soo socotaba hadii ay beedbo fursada leh inay petrolka xaraashaan oo gorgortan la galaan shirkadaha ugu waaweyn ee petrolka ee dunida anagu khibradda aan leenahay iyo dunida aan ka soo shaqeeyo waxaanu diyaar u nahay aan sameyn doonaa shirkadda petrolka ee Soomaaliya oo khubarada ugu waaweyn oo dunida oo dhan intaan qorano waan naqaanaa sidii aan petrolka oo maaragtay qiimaha istaahisho aan uga heli lahayn dunida taasina waa dhaqaalaha wax badan oo wadanka loogu qaban doono hadii ay beedmo arrimihii dhaqaalahan ku jira waana meelaha ugu muhiimsan wadankan saad uga warqabtaan dunidan aan hadda ku jirno wax kasta cilmigan technology-ga ba aad dadku isticmaalaan marka waxa loo baahan yahay wax kasta waa xawayaan ama ha noqoto iskuulada ama ha noqoto beeraha ama ha noqoto dalxiis ama ha noqoto ganacsi wax kasta wax la isticmaalaa waa platforms high speed internet marka waxa loo baahan yahay wadankan in casriga technology-ga intaan isticmaalo sidii marka wadankeenu uu yeelan lahaa waxyaalo badan oo inoo faa'iideyn karto oo dhaqaalaha wadankana kor u dhisi kara maxaa kamid ah tusaale hadaan 2-3 inaga siiyo waxa jira wax la yiraahdo e-commerce waa ganacsigan sida Alibaba oo kale ama Amazon oo kale ganacsatada Soomaaliyeed oo wadankeena uu leeyahay ka sokow anigu Nairobi iyo dhulkaas aan u badnahay iyo meelo badan oo Uganda iyo Afrikadan kale aan aragnay waxa weeyaan ganacsatada Soomaaliyeed waxa ay gaadhaa ilaa South Africa markaad hoos aadid koonfur aadid
afrikada maaragtay dhexdeeda oo central africa ilaa west africa halkaasoo dhan waxaa jooga kumanyaal soomaaliya iyo ilaa south africa oo ka ganacsada. soomaalidu waa dad ilaahay haybad u siiyey ganacsiga, marka waa waxyaalaha ilaahay haybad inoo siiya natural u leenahay. marka ganacsiga ay hadda sameeyaan oo dhan waa ganacsi aan weli cilmiga iyo bahaladaas maaragtay technology-gaas lagu iibinayo adaan qofkii la joogin waxaagii dalbanayso lagu keenayo. marka waxay hadda iibiyaan ama ganacsiga dhaqaalaha fiican ay leeyihiin haddii technology-gan la isticmaalo 10 laab ama 20 laab waxay gadi jireen bay gadayaan. taasina dhaqaale xoog badan oo wadanka dib loogu maalgelin karo oo wax badan looga qaban karo buu keeni karaa. taasina waa waxyaalaha runtii aan jecelahay in laga faa'iideysto oo haddii eebeedo aan qorshahayga ku jirta. takaloo aan laba kalmadood ka odhanayaa waa arrimaha ku saabsan bangiga dhexe wadankeenu. anigu wixii sidoo cabdidaahir hore u sheegay anigu PhD-deeda waxaan ku qaatay dhaqaalaha la xidhiidha maaragtay bangiga dhexe iyo sidoo wadanka dhaqaalaha u maamulo. inaku wadankeenu bangiga dhexaan leenahay runtii bangi dhexe oo runtii hawshii loogu talagalay qabta maaha. marka ugu horeysa waxa saaran bangigeena dhexe xayiraad baa saaran oo waxaana saaray wadankan aan joogno wadankan Mareykanka baa saaray. xayiraaday saareenna waxa weeyaan waxay leeyihiin maadaama wadankiini qolooyin xaq jira ay ka jiraan oo ay isticmaalaan xawaaladihii wadankiina isticmaalaan, sidee baan ku kala garananaa dadkii daacadda ahaa oo legitimate-ka ahaa oo xaqa u lahaa inay isticmaalaan iyo kuwii kale oo u isticmaalaya bangiyada iyo dhaqaalaha loo soo diraya inay Soomaali ku laayaan oo ku baabiyaan. marka maadaamaan kala saari kareenin labadoodii waxa aan markaa wax la yiraahdo laba sharci oo wadankan ka soo baxay. mid waxa la yiraahdaa anti money laundering waa arinta ku saabsan oo lacag maaragtay si xaaraan lagu keenay loo xalaaleeyo bangiyada la mariyo. marka ka waxa la yiraahdaa anti money laundering. ka kalena waxa la yiraahdaa terrorism financing. waxay leeyihiin marka waxa de lacagyo beelaha looga soo diro qolooyinka xaq jirka Soomaaliya dhaqaalihii waxa loo soo diri lahaa wadanka ku xoogeysan lahaayeen hub ku gadan lahaayeen. marka arrimaha dartood bangigeenu labada gacmood buu ka xidhan yahay. bangi shaqeeya maaha, waa sidii cashier oo kala lacagta dunidu deeqda inoo siiso dhan baa wadamo kale inta laga keeno baa la keenay iyadoo lacagtu jawaano lagaga soo qaado bangi yar oo ku yaala Istanbul wadanka Turkiga wadankeena inoo kafaala qaada. lacagteena la siiyo bangigaas lagu soo ridaa Soomaaliya la keenaa khasnadaha lagu shubaa waaweyn oo bangiga dhexe ku yaala. marka bangigii dhexe hawshiisii ahayd inuu dhaqaalaha wadanka wax ka qabto bangiyada keeno ganacsatada u furo Soomaalidan joogta East Africa meel kasta joogta. haddii ay bangiyadeenu halka gaari lahaayeen Soomaalida joogto oo dhan ma isticmaalaan bangiyada wadamada kale oo aan dariska nahay, waayo maalin qura intay yimaadaan bay xoolahooda ka dhici karaan ama ka qaadi karaan. marka ma aamina, marka waa ku kadeedan yihiin, markaana meeshay gaari lahaayeen ma gaadhayaan. marka arrimahaas oo dhan xalkeedu waxa weeyaan oo maaragtay sidii wax looga qaban lahaa waxa loo baahan yahay baa la yidhi national biometric ID. haddaad national biometric ID keentid taasi waxay kuu ogolaanaysaa inaad ogaatid qofkii bangiga isticmaalayay wuxuu yahay. afka Ingiriisiga waxa lagu yiraahdaa KYC macnaheedu waa maxay? know your customer. marka waxaad garanaysaa qofkii aad farihiisa ka qaaday indhahoodii maartay adeegtay DNA-gooda de waad garanaysaa qofku yahay. marka annakana waxa naga go'an hadii ay beedmo in mudnaanta koobaad aan wadanka dhan loo sameyn doono national biometric ID bangiyadeena ku furmaan. national biometric ID waxa kale oo loo isticmaalaa national biometric ID waxa loo isticmaalaa waa kii lagu codeyn lahaa oo dadka Soomaaliya oo dhan doorasho qof iyo cod ay ku gaari lahayn, waayo waa kii loo baahnaa. national biometric ID waxa kale oo loo isticmaalaa oo iyaduna muhiima saad ka warqabtaan wadankeena sidii burburku ugu dhacay 30 sanadood ugu dambeeyay. waxa weeyaan waxa aad iyo aad u soo gala wadankan aan dariskana oo Ethiopia oo aad iyo aad qoomiyadda la yiraahdo Oromada baa maaragtay si xoog leh u soo galay. qofkii tagay Puntland ama Somaliland tagay baa arki kara
waxa weeyaan xaafado dhan iyo meelo dhan oo deegaano badan oo iyaku degan yihiin baa jira markaasay intay dhaqankeenii barteen af soomaaligii barteen soomaalidii guursadeen waa maalin dhowba siday u socotaba waxba dhici karaysa waddankaba in laga qaado marka haddaan national biometric ID leenahay Soomaali oo dhan dadkii la garanayeen marka la hayo macluumaadkooda dee waxaan ogaanaynaa kii ajnabiga iyo kii aan waddankan wuxuu yahay markaana waa ka warheenana taana waxbaan ka qabananaa waxyaalaha kale oo runtii iyaduna dhaqaalaha Soomaaliya wax weyn ka tari kara saboolnimada ka jirta dawladuna dakhliga heli lahayd wax ku qaban lahayd ama caafimaad ha noqoto ama kaabayaal ha noqoto meelaha ugu waaweyn ama sectorska la yiraahdo dhaqaalaha dunida uu aad u koro waa dalxiiska iyo wax kale oo la yiraahdo blue economy waxa weeyaan waa dalxiiskii laga dhisay hoteelo waaweyn xeebta dheer aan leenahay iyo dadkii iimaaniyo dalxiiska ahaa oo marka runtii restaurantskoodii waxa soo dhan marka kuwaasoo dhan hadii magaalooyinka waaweyn oo aan ku leenahay runtii waddankeena ku yaala airportada ugu casriga oo dunida oo dhan looga soo duuli karo high speed internet leh hoteelo 5 star iyo 6 star laga dhiso kaasina shaqo abuur ciida ka badan boqolaal dad oo aanan cilmi badan lahayn oo yaqaan sida looga shaqeeyo ma taqaana hoteeladii cuntadooda iyo google sida loo google iyo waxa soo dhan boqolaal reer oo kumayaal reer bay shaqo abuuraysaa taasina waa arrimaha kale oo runtii aan wax uga qabanayno dhaqaalaha bay ka mid tahay haddaan ka gudbo waqtiguna wayna hayaa haddaan ka gudbo taa aan wax ka laba kalmadood ka idhaaho arrimaha ku saabsan dawlad wanaagga ama la xisaabtan dhab ah la keeno daahfurnaan musuqmaasuqa sidii loola dagaalami lahaa arrimahan anigu careerkayga ka bilaabay markaan ka bilaabay New York oo shirkadda la yiraahdo Price Waterhouse oo xisaabinta iyo hantidhawrka waxaan anigu khibrad u leeyahay markaan anigu waddanka intaan joogay guddiga dhaqaalaha maaragtay mas'uuliyad weyn ka hayay marka waxaan arkay siyaabaha musuqmaasuqa wax looga qaban karo oo waddankeenu sanad kasta saad ka warqabtaan kaalinta ugu hooseysa uu ka galaa waddanka ugu musuqmaasuq badan dunida marka xalkiisu markaan arrinta ka fakarnay waa tan taladan anagu soo jeedinaa hadii eebeed mo ilaahay fursadna siiyo marka ugu horeysa waxa jira dhowr hay'adood oo muhiim ah oo dhaqaalaha waddanka runtii qayb ka mid ah iyo dhaqaalihiisa xafiiska la yiraahdo xisaabiyaha guud oo maaragtay qayb weyn ka mid ah sidii maaragtay accounting dawladda oo dhan ku saabsan hadda wuxuu ka mid yahay waa qayb ka mid ah wasaaradda maaliyadda anagu waxaan soo jeedinaynaa xafiiska xisaabiyaha guud la yiraahdo in laga dhex saaro wasaaradda maaliyadda oo xafiis madax bannaan oo runtii in laga dhigo oo dawladda ka madax bannaan waxa kale aan doonaynaa hantidhawrka ama dadkii ilaalin lahaa runtii dhaqaalihii waddanka hantidhawrkana xafiis madax bannaan oo dawladda ka madax bannaan oo dadka ka shaqeynaya dad lagu soo xuray karti iyo awood iyo runtii dad badan oo maaragtay si daahfuran loogu soo xuray marka xisaabiyaha guud hantidhawrka guud iyo musuqa ugu weyn Soomaaliya meeshuu ka jira waxa weeyaan xafiiska la yiraahdo iibsiga ama afka Ingiriiska procurement waa malaayiintan kontraagyada dawladdu bixiso waa waxay dawladda oo dhan cid la xisaabtantaa ma jirto musuqa ugu weyn kaasuu jira xafiiska procurement ka la yiraahdo ama iibsiga kana isagoo cilmigan digital technology-gan inii sheeganay musuqa oo dhan waa yaraanaya xafiis madax bannaan baan iyakuna qorshahayga ku jirta inaan wax ku qabanno oo aan sameeyno arrinta kale oo runtii aad idinku ogtihiin cashuurta waddanka laga ururiyo waddankan cashuur businessyaal badan baa jira haddaad qiyaastid waa qiyaasun weeyaan ilaa 50% weeyaan cashuurta xaqa ah oo legitimate la soo ururiyaa kontonkan kale lama soo ururiyo ama arrimo siyaasadeed dartood baa la yiraahaa ama dadka xukunka iyo cid kastaba ha noqotee ay rabaan dadkaas taageero ama baarlamaanka ku jira ama mooshin san looga keenin cashuur dhaaf wax la yiraahaa caan oo ra'iisul wasaarayaashu iyo madaxweynayaashu saxiixaan markaana dakhligii waddanka soo galiyay iyo runtii wixii soo galiyay hoos bay u dhacday annagu waxaan soo jeedinaynaa waddankan Mareykanka waxay leeyihiin hay'ad la yiraahdo IRS Internal Revenue Service waa hay'ad madax bannaan cashuurta iyo wixii ku saabsan oo customka oo dhan hay'adaas waddankan ururisa waa hay'ad madax bannaan hay'ad ma aha dawladdu soo faragelin karto markaana taamid u dhiganto la yiraahdo Somali Revenue Authority baan rabnaa annagu inaan sameeyno oo arrimaha aan wax kaga qabanno iyaga qaybta ugu dambaysa haddaan iyadana aan ka hadlo waxaan idhi waddankeena ilaa mahadii
batrool fara badan oo badda ku jira oo laga helay baa jira bariguna waa buuxa isaguna batrool badan baa jira waxa loo baahan yahay si loo soo saaro khayraadkaas shuruuc badan oo wadankan runtii loo baahan yahay in marka hore meel la sameeyo shuruucda si ayna musuq iyo u lumin oo maogta dhaqaalaha faraha badan uuna u lumin marka xukuumadda hadda waqtigeedu dhamaaday runtii waad maqasheen oo dhowr jeer bay isku dayeen in ay iibiyaan ama xaraashaan blogyada waaweyn oo badda ku yaala mudaharaadkii ugu weynaa wuxuu ka dhacay London waa ogeedana bishii February 2019 Soomaali weyn oo dhan baa qaylisay sidaa darteed bay dib uga gurteen weli ma lihin hay'adihii iyo dadkii hawlaha gali lahaa wasaaradda batroolka baa waxay rabtaa inay shirkadaha ugu waaweyn wadankan oo ay ka mid tahay ExxonMobil baa wasaarad aan xitaa haysan staff awood loo karti leh baa waxay rabaan inay soo hor fadhiistaan kuwii trillions of dollars loo lawyer leh oo accountants leh oo dhaqaalayahan leh waxaasay rabaan in leeyahay gorgortan baan la galanaa sidaad gorgortan loo galaysaa marka gorgortanka waxa gala dunida oo batroolkii arrimaha maaragtay gorgortankeeda gala shirkad private aan leenahay oo wadan kasta leeyahay wadanka Malaysia waxa la yiraahdaa shirkadooda Petronas baa la yiraahdaa Brazil Petrobras baa la yiraahdaa Malaysia marka wadamadaas oo dhan shirkadaas loo baahan in la dhiso dadkii xirfadda lahaa loo raadiyo marka kadib baad bilaabi kartaa hawlaha gari kartaa waxaan ku kalsoonahay anagu maadaama dunidana sida ay u shaqeeyay wadamadan galbeedka iyo say u shaqeeyaan kalsooni weyn waxaan ku qabnaa shirkadda haddaan sameeyno in runtii ay gorgortan fiican la gali karto wadamadan oo dhan markaana dhaqaale fara badan iyo dakhli badan oo wadanka wax looga qabtay maaragtay la keeni doono taasina waa arin iyaduna naga go'an weeyaan waxa kale oo aan rabaa waad ka warqabtaan wadankan cimiladan isbedbedelaysa oo aad iyo aad runtii aad uga warqabtaan oo 10 ama 8 sanadood ugu dambeysay markastaba abaaro soo noqnoqda baa jira oo runtii 3 sanadood baa 4 sanadood dhacaya waxa kale oo jira aad uga warqabtaan daadkan ama wabiyadan fataha oo ka mid tahay shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo hiiraan oo iyaduna ugu caansan oo markasta dadka maaragtay ay runtii wabiyadaasi soo fatahaan arrimahaas oo dhan waxa loo baahan yahay in wax laga qabto anagu waxaan aaminsanahay in biyo xidheenno biyaha fataha loogu talagalay oo maaragtay mudnaanta koowaad mudan inaan wax ka qabanno baan anagu taana ka aaminsanahay oo arrintaa ku saabsan ta kale oo aad ogtihiin oo dad badan ayna ka warqabin waxa weeyaan wadankeena waxa jira dad badan oo barakacayaal ah oo wadanka gudihiisa oo dhan runtii abaar iyo wax kastaba ha noqoto meelo badan degan oo xamar haddaad tagtid ama magaalo kasta tagtid waa dadka meelaha cariishada iyo buulasha degan dadka oo dhan maba arkaan dadkaasi inay maaragtay jiraan iyo in kale dadkaasina waxay u baahan yihiin in la siiyo fursad arrimihii waaweyn ama beeraha ha noqoto ama xoolaha ha noqoto ama kalluumaysiga ha noqoto ama dalxiiska ha noqoto in dib loo dejiyo bay istaahilaan oo wax laga qabto waad ka warqabtaan oo wadankeenii dhir badan baa aad loo xaalufiyay oo markaana runtii waxa loo baahan yahay in dhirta dib loo abuuro waayo cimiladan isbedelaysa dhirta haddaad xaalufisid lafteedu waa ka sii daraysa wax badan bay ku dartaa waxa kale oo jira meelo badan oo runtii lagu daadiyo maaragtay qashin iyo wax xasaas oo kale ah oo iyaduna environmentka runtii dhibaato weyn u keenta arrimahaas oo dhanna waa arrimahan jecel insha Allah inaan priority ka dhigno marka waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa anigu dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan jeclahay inaan bogaadin iyo fariin inaan u diro fariintan u dirayaa waxa weeyaan hadii lahayd ma wadankeenu doorasho u dhaqaaqaya waxaan rajaynayaa insha Allah inay tahay doorashadii dadbaneed ugu dambeysay ee wadankeena ka dhacda inay tahay tan soo